dadka reer Gaarisa ayaa ku jira diyaar garowgii ugu weyn ay maalinta Ciidul Fitriga ay u diyaar garoobayaan suuqa weyn ee suuq mugdi inta badan dadka gobolkani u soo adeegtagaan wuxuu ahaa mid zaxmad sareysa laga dareemayay gudihiisa saad arkaysan baa dadka muslimiinta waxay bilaabeen inay u dabaaldegaan ama inay u diyaar garoobaan munaasabada ciida Allah waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo ciid wanaagsan si farxad aan ku dhameysano dhammaan muslimiinta meel soo joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh suuqa way kala duwanaayeen suuqa dharka ayaa si gaar ah dadku waxay ahaayeen kuwa iszaxmad uga muuqanaysay marba marka ka sii dambeysana boqolaal ay soo galayeen ciriiri fara badan suuqa uu ka jiray inta badan dadka dhalinyarada hooyooyinka iyo caruurta ayaa ahaa kuwa suuqaasi soo buux dhaafinayay wasaaradda gudaha dalkani Kenya ayaa sidoo kale shaacisay sanadkani in maalinta Jimcaha ay noqon doonto maalin fasaxa dhammaan Kenyaanka oo masiixiyiintuna ay noqon doonaan kuwa si rasmi oo la ciidi doona oo lana dabaaldegi doono dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ku nool taasoo wareegtada rasmiga dawladana lagu soo daabacay magaalada Gaarisa waxaa la isku diyaarinayaa ciida dhammaan muslimiinta meel waliba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa oo ka baryayaa in ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta meel waliba joogaanba acmaashooda wanaagsaneed ay sameeyaan bisha Ramadaan inuu ka aqbalo Soomaalida gobolkan ayaa ilaa iminka waxay bilaabeen mashxarado iyo dabaaldeg ay ugu dabaaldegayaan maalintaasi Ciidul Fitriga ayagoo isku salaamaya baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga dabaaldeguna waxa uu noqonayaa mid lagu soo dhaweynayo weynaynta maalinta Ciidul Fitriga ee fooda nagu soo hayso Maxamed Farax Shire VOA Garissa